halkan rabaa inaan fariin uga diro TV-ga Universal. TV-ga Universal waqtiyada kamida waanu isku dhacnay. wuxuu diiday inuu baahiyo khudbadii 26 Juun. waxaan kala noqonay ruqsadii cabasho iyo wada hadal iyo hana la ixtiraamo iyo hana la daayo muddo bila qaadatay lacag badan oo ganaaxa ayaanu ka qaadnay oo dhowr iyo $10,000 gaadhay. habeen hore waxaan arkay gabdho aan af Soomaaliga ba aqoon ya horta haba ka hadleen qofku bal diintii iyo dhaqankii qofku ha ka hadle soo inuu afkii yaqaano ma ha iska joogto. waxaan la yaab dad islaamayno waxaynu maraynaa in la yiraahdo oo lala soo istaago meel hooyadii wiilkeeda soo barbaarsatay oo diinta iyo xadiiska iyo aayaduba sheegay inay 3 jeer xaq ku leedahay qofka ay dhashay oo duruufaha ay ku soo korisay iyo duruufaha ay la soo martay iyo waxa ay waayo la soo jeexday aynu ognahay oo anigu aan kamid ah in intii TV-ga la isla soo taago la yiraahdo dhibaatay nolosha wiilkeeda ku tahay yay soo aqmari ama dad dhagaysto ama dad waaweyni u soo fadhiista. dadkiinni ka falcelin lahaa waa dadkiina fadhiyad miyaan sidaa ahay. aniga maanta hooyaday way noosha waxa weeye qof kastoo idinka midana hooyadii wuu garanayaa de qiimaha ugu fadhido waxaan halkan ka sharixi karo ma marka in TV-geeni lala soo fadhiisto inagoo dad muslina oo dad dhaqan leh in hooyadii la alienate gareeyo alien wiilkeedii la yiraahdo oo la isku dhagaysto oo sheekadaas iyadoo diintiina meel laga dhacayo oo aayado iyo xadiisyo la beeninayo dhaqankeennii suubanaa iyo wixii aynu ku dhaqmi jirnayna meel laga dhacayo. TV-ga Universal fariintan ha dhigaysto. TV-ga Universal waxaan halkan uga dirayaa si public in aanu waxa iyo wax la mida ee dhaqanka iyo diinta lagu burburinayo inaanu dib u qaban karin. hadduu dib u qabtana in qaranku tallaabo ka qaado. arrintaana waxaan isku daynaa intii awoodayeen waad ogtihiin saxaafaddu way awood badan haddii hadda la is yiraahdo u yeedha oo meediyaha aynu sharci u samayno inta reaction ka imaanaysa dhalinyaro waynu ognahay odayoo waynu ognahay gabadhay waynu ognahay marka waxay ila tahay in idinka laydinka helo dad tallaabo hore u soo qaada oo aan xukuumadda ahayn oo muwaadiniina oo fahmo dhibta uu ina ku hayo oo tala rasmiya xukuumadda uga soo gudbiya oo annaga noo soo gudbiya annaguna goobta aan ahayd baanu geynay. wax idin diidayaa ma jiraan dadkiina aqoon-yahanada ee wax bartay inaanay arrintani hadday sidan ina ku sii socoto ay dhib ina ku keeni karto. marka mas'uuliyadda qayb baad ku leedihiin ee qaybtiina qaata ma idinla tahay sidaa